waxaad adigu noqonaysaa wixii aad mar kasta ka fikirto si joogto ahna u samaysa maalin kasta madaxweyne iyo boqor kasta beri bay ahaayeen ilmo yar oo oohin badan dhismaha quruxda badan aad arkaysa mar buu ahaa naqshad warqad ku sawiran shirkadaha waaweyn dhowr sano ka hor waxay ahaayeen midaan jirin sheekh kasta oo cilmi laga doonto maanta mar buu ahaa asna cilmi raadis oo arday ah heer kasta oo qof nolosha ka taagan yahay ma ahan inuu ku gaaro si kadis ah ama dhaqso ah balse waxay ku qaadatay dadaal dheeri ah halgan adag dulqaad badan tala saarasho rabbi iyo aaminaadda naftooda iyo inay aamineen inay gaari karaan halka ay rabaan muhiim ma ahan halka aad maanta joogto balse waxaa muhiim ah halka aad u socoto wax kasta oo ah qayb ka mid ah noloshaada waxay ku noqdeen adiga mar kasta ka fikirayay oo maskaxda ku hayay ficil ahaanna u sameeyay si joogto ah dadka guulaysta waxay shaqo kasta ku qabtaan iyagoo firfircoon oo ku faraxsan xamaasad badanna u haya subax kasta waxay xoogga saaraan hawl kastoo u taalay iyo inay dhammaystiraan halka dadka fashilmay ay doortaan inay iska fadhiyaan ama iska hurdaan waxay dareemaan caajis iyo wahsi badan waxay ku soo jeedaan baashaal iyo madadaalo habeenkii oo dhan haddaba waad gaari kartaa halka aad higsanayso waad guulaysan kartaa laakiin iska hubi haddii ay jiraan waxyaabo aad samaysa maalin kasta oo aan horay kuu wadin ee dib kuu dhiga ka fikir oo hel habbaad ku joojisa samayntooda noloshaadana uga saarto xaqiiqdii ficil kasta aad joogto u samaysa maalin kasta wuxuu kugu noqdaa dabeecad wuu kugu koraa jihada noloshaadana beddelaa adiga ayaana ka mas-uul ah oo doortay waxa aad samaynayso cidna kuma eedayn kartid xasuuso maalinta ay tahay inaad qaadato go'aan adag waa maalinta aad cagta saarto waddadaadii guusha hadda samaysa wixii aad rabtay oo dib ha u dhigin noloshu waa maanta had iyo jeerna u samir nolosha